السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya gaar ahaan kuwa militariga ee dagaalka ku jira 4 bil in ka badan ma aysan helin wax mushaar ah. Hadda waxaa soo baxaya warar fadeexad ah oo saraakiisha ciidanka dowladda iyo villa Soomaaliya dul hubanaysa taas oo ku aadan in ehelada iyo sidoo kale xaasaska iyo ciidanka dowladda ee furmaha la geeyay madaxa iskula jiraan waxbarashada caruurtooda ay waayeen waxay uga bixiyaan guryaha qaarkood laga saaray caruurtooda iyo xasaskooda. Haddaba waxaa halkan idinkula wadaagaya xogihii ugu dambeeyay oo arrintaasi ku aadan iyo hadal uu hore u sheegay Xasan Sheekh Maxamuud oo dhab ahaan u hirgalay taas oo cadeynaysa mushaar la'aanta ciidanka xoogga dalka Soomaaliya haysata. Marka hore waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalkeena sii gudbiso, la gareyso, share gareyso oo aad la sii wadaagto asxaabtaada. Inta aan gelin faahfaahinta waxaan idin sii deynayaa codka mid ka mid ah ciidamada dowladda Soomaaliya oo magaciisa aan diidnay in aan halkan kusoo gudbino sabab ku saabsan amnigiisa oo ah in dowladda ay beegsan karto, xiri karto, dhibaato oo la kulmi karo. Ha yeeshee codkiisa ayaa idiin soo gudbinayaa. Wuxuu ku sheegayaa in 4 bil mushaar aysan qaadan, guryihii laga saaray qaar ka mid ah xasaskooda iyo caruurtooda, dhibaatooyin kala duwan ay la kulmeen, dowladda dekana ay gelisay, amnigoodina khatar uu ku jiro. Marka hore aan dhageysano kadib aragtidaada ka dhiibo qaybta hoose. Ciidamada waxay ku jiraan xaalkan adag oo 3 sano ee hadda dowladdan ay jirto ee Xasan Sheekh Majaraha uu hayo dhibaatooyin kala duwan oo dil ay ka mid yihiin, xarig ay ka mid yihiin, kala sooc ay ka mid yihiin, handadaad ay ka mid tahay, qaar dabka lagu shubo ay ka mid tahay, qaar nolol aan lagu helin ay ka mid tahay. Haddana inta nool ee furmaha lagu shubay xaaladan aad maqlaysaan ee aan idin cadeeyay oo cadeemaheeda ay wadato ayay ku jiraan waqtigan. Askari isku daya inuu arrintan ka hadlo ama uu cawdo xabsiga ayaa loo dirayaa sida qaarkood ay ii sheegeen. Inta kalena waxaa la leeyahay hor u socda oo gadaal ma soo fiirin kartaan. Haddaba in arrintan ay jirto waxaa cadeyn u ah hadal horay uu u yiri madaxweynaha Soomaaliya ee waqtigiisa hadda uu sii dhamaanaya Xasan Sheekh Maxamuud isla markaana qaladaad waaweyn dowladdiisa laga tabanayo oo ka badan tii ay gashay dowladdii uu hogaaminayay madaxweynaha shacabka ay wada jeclaayeen Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Waxaa ka mid ah hadalkan uu ku leeyahay askarigii aanan rabin $100 fiiri askarigii aanan rabin $100 waxa uu leeyahay xor ah in uu iska baxo iska tag ayuu leeyahay. Taas ayaa marka daliil iyo cadeyn u ah in dowladdan aysan tixgelin, qadarin, qiimeyn aysan u haynin ciidamadan dhalinyarada ah ee geesiyaasha ah ee naftooda huraya. Marka waxaan isku xirnaa warkan ciidanka ka soo baxay iyo warkii horay uu u yiray madaxweynaha waqtigiisa hadda uu sii dhamaanayo ee waqtiga yar ay u harsan tahay Xasan Sheekh Maxamuud oo xitaa inuu soo laabto dad badan rajo xumo ay ka muujinayaan maadaama qaladaadka dowladdiisa ay gashay iyo kuwa asiga uu galay ay noqdeen kuwa biyaha ka badan. Marka warkan ayaa cadeyn u ah. Waa gartay adiga aragtidaada qaybta hoose ayaad ka dhiiban kartaa adiga
oo aysan ku qaadaynin qabyaalad iyo nijeclaysi. Ha yeeshee sida aragtidaada ay tahay ee saxda ah ku cabir qaybta hoose kasoo dhiibo. xasan sheekh maxamuud dadka Soomaaliyeed haddii uu xilka ka dego iyo ciidamada ma u darsan doonaan mise way ka reesan doonaan? qaybta hoose aragti ahaan uga soo dhiibo qodobkaasi. muuqaalkeena sii gudbi, like garee, share garee, kana mid noqo asxaabteena ku xiran boggeena oo nagu soo bir.